Dowladda Islaamiga ah ee Soomaaliya ayaa gacan saar la leh kooxda Islaamiga ah ee jihaad doonka ah, waxaana loo yaqaanaa Daacish. Warbixin uu ku qoray jaraydka The Conversation ninka ka hadlida arrimaha Soomaaliya ku caanbaxay ee Stigkerle Hansen ayaa waxay u qornayd sida tan. Iyadoo saldhig ku leh dhulka ismaamulka waqooyi ee Soomaaliya ee Puntland, kooxdan argagixisadu waxay ahayd bartilmaameedkii howlgalkii ugu horeeyey ee ajnabiga ah ee maamulka Trump bishii Februari 2025. Horey, kooxdan ayaa lala xiriiriyey weeraro argagixiso oo lala beegsaday khaticanka iyo safaarada Israel ee Stockholm. Stigkerle Hansen oo ah cilmi baare isla markaana qoray buugaag dhowr ah oo ka hadlaya jihaadka Afrika, ayaa u kuurgalay halka uu ka soo bilowday, sare u kaca iyo guuldarrooyinkii dhowaan ka dhacay jiidaha dagaalka ee buuraha Puntland. Kicitaanka dowladda Islaamka. Ka hor inta aan la dhisin dowladda Islaamiga ah ee Soomaaliya sanadkii 2015, kooxda jihaad doonka ah ee Soomaaliya ee Al-Shabaab ayaa ka aas-aasnayd waqooyiga. Kooxdan yar ayaa xiriir ballaaran la lahaa shabakadaha wax tahriibiya. Markii dambe laba bay u kala jabtay, waxaana ka soo dhex baxay hogaamiyaha mustaqbalka ee dowladda Islaamiga ah ee Soomaaliya, Sheekh Cabdulqaadir Muumin, oo ka soo dhex baxay koox ka mid ah kooxihii burburay. Soomaaliya, qabiiladu waxay qeexaan xidhiidhka ka dhexeeya dadka iyo dhammaan jilayaasha bulshada. Xidhiidhka kooxdan cusub iyo beesha Cali Saleebaan ayaa u sahashay inay ka faa'iidaystaan xidhiidhka ay beeshu la leedahay kooxaha tahriibka iyo budhcadbadeeda badda. Puntland waa xudunta xiriirka iyo ganacsiga badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Yemen, iyo sidoo kale bariga dhexe ee ballaaran. Tahriibka ayaa gobolka ka socday qarniyo badan. Dhulka qalafsan ayaa ku habboon budhcadbadeednimada, tahriibinta sharci darrada ah iyo fallaagada. Puntland ayaa in ka badan 30 sano ka talinaysay Soomaaliya inteeda kale, iyadoo dowladda Soomaaliya aysan maanta wax saamayn ah ku lahayn halkaas. Jihaadkii ka dambeeyey dowladda Islaamiga ah ee Soomaaliya. Muumin waxa uu ku noolaa dalka Sweden sagaashamaadkii iyo horaantii 2000 kadibna waxa uu u guuray dalka Ingiriiska. Dib ugu soo laabashadiisa Soomaaliya, waxa uu ku biiray Al-Shabaab waxaana uu noqday nin caan ka ah muuqaalada jihaadka ee kooxda. Fiidiyowyada noocan oo kale ah waxay ujeedadoodu tahay inay ilaaliyaan anshaxa, soo jiidashada shaqaalaysiinta cusub iyo abuurista naxariis kooxda. Sanadkii 2015, Muumin wuxuu goostay inuu hogaamiyo dowladda Islaamiga ah ee Soomaaliya. Ninka labaad ee ugu sareeyey waxa uu ahaa nin kale oo ka soo jeeda beesha Cali Saleebaan oo lagu magacaabo Mahad Macallin. Sanadkii 2016, muuqaalkii ugu horeeyey ee kooxda waxaa lagu faafiyey warbaahinta dowladda Islaamiga ah. Guul u soo hoyatay kooxdan ayaa daba socotay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee sanadkii 2017 kii lagu qaaday hotelka Juba oo ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland iyo dekedda badda. Tani waxay awood u siisay dowladda Islaamiga ah ee Soomaaliya inay ku cadaadiso ganacsatada Boosaaso inay bixiyaan lacagta ilaalinta, oo ah isha kaliya ee ugu muhiimsan ee dhaqaalaha. Sanadihii 2017, 2018 waxaa la rumaysan yahay in kooxdan ay ka dambeeyeen ilaa 5 dil oo ka dhacay bartamaha Soomaaliya. Dilku wuxuu ahaa qalab xoog leh oo lagu soo saaro lacag ilaalin ah. 7 Luulyo 2018, kooxda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu magacowday wilaayada Islaamiga ah ee Daacish, sidoo kale loo yaqaan Daacish. Xafiiska gobolka ee Maktab Al-Karar wuxuu ku dhisnaa qaybta yar ee Puntland, taasoo siisay mas'uuliyad caalami ah. Kooxda Soomaalida waxaa mas'uul ka ahaa gobollada bartamaha Afrika iyo Mosambique ee dowladda Islaamiga ah. Lacagaha ayaa kooxda uga imaan jiray dowladda Islaamiga ah, sidoo kale lacagaha baada ah ayaa looga soo qaadaa Boosaaso, magaalooyinka kale ee waqooyiga Puntland iyo in ka badan oo Muqdisho laga soo qaado. Qaybtii hore ee 2022, khasnadda Maraykanka ayaa sheegtay in ururku uu ka soo xareeyey 3 milyan lacago baad ah, soo dejin la xiriira xoolaha iyo beeraha. Xafiiska gobolka iyo Muumin waxay u soo baxeen door dhaqaale oo ku yaala bariga Afrika iyo xitaa dibaddaba, iyagoo ka soo kicitimay xaruntooda Buur Dextaal ee bari Puntland. Runtii, saraakiil Maraykan ah oo aan la magacaabin ayaa 2023 sheegtay in Muumin laga dhigay hogaamiyaha ku meel gaadhka ah ee dowladda Islaamka. Sumcad xad dhaaf ah. Sumcaddii dowladda Islaamka ee Soomaaliya inta badan waa mid xad dhaaf ah. Kooxdu weligeed mana qabsan dhul ballaaran. Tiradeeda sanadka 2024 waxaa lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 6 iyo 1. Taasi waxay ka duwan tahay Al-Shabaabka koonfurta Soomaaliya. Weerarkii qorshaysnaa ee lagu qaaday safaaradda Israa'iil ee Stockholm 2024 malaha wuu daciifay oo way ku guuldaraysatay inay maxkamad sii taagto. Iyo jihaad doonka ku xidhan weerar qorshaysan oo ka dhacay khaticanka 2018 waxa uu u muuqdaa inuu ka baxay dowladda Islaamka ka hor qorshaha. Sidoo kale waxaa shaki laga muujinayaa in Muumin uu yahay hogaamiyaha caalamiga ah ee dowladda Islaamiga ah sida ay dadka qaar ku andacoonayaan. Taasi waa 2 sababood oo waaweyn.
Marka hore, hogaamiyaha dowladda Islaamka waa in laga soo saaraa qabiilka qaraabada ah ee nebiga Qureshi. Muumin maaha. 2. Dowladda Islaamiga ah ee Soomaaliya waa tan ugu yar wilaayaadka Islaamiga ah ee Afrika. Waxay u badan tahay in hogaamiyaha gobolka xoog badan uu meel sare ka dhigi lahaa. Inkasta oo awoodda dhaqaale ururinta ee kooxda fadhigeedu yahay Puntland ay si weyn ugu caan baxday warbaahinta dowladda Islaamiga ah, haddana dowladda Islaamiga ah ee Soomaaliya ayaan ka sarayn kooxda Daesh ee Saxaraha iyo Mozambique. 4. Hoos laakiin aan ka bixin. Maamulka Puntland ayaa bishii Janaayo 2025 qaaday weeraro ka dhan ah dowladda Islaamiga ah oo guulo laga gaaray. Taas waxaa ku weheliyey taageero dhanka irka ah oo ay siiyeen Maraykanka iyo Imaaraadka Carabta. Puntland waxay ku guulaysatay dagaallo muhiim ah bilihii Januari iyo Februari oo uu ku jiro weerar ay ku dishay 7 dagaalyahan oo ka tirsan Daesh. Dabayaaqadii Febraayo, niyadda dagaalyahanada dowladda Islaamka waxay u ekayd mid jaban. Markii ay dhacday Buur Dextaal oo ahayd saldhigga ugu weyn bishii Maarso, dhammaan saldhigyadii waaweynaa ee la yaqaanay ayaa dhacay. In badan oo ka mid ah dagaalyahanadii ajnabiga ahaa ee cararay ayaa la qabtay. Laakiin dowladda Islaamka lagama adkaan. Dhulka ayaa u sahlay qaar ka mid ah dagaalyahanada in ay ku dhuuntaan. Muumin oo 7 jir ah iyo taliyaha labaad ee Cabdiraxmaan Faahiye midna lama soo sheegin in la dilay. Waxaa haray ugu yaraan 200 oo dagaalyahan. Haddii ay weli awoodo in dowladda Islaamiga ah ay lacago baad ah ka qaado ganacsatada reer waqooyiga ah, waxaa dhici karta inay shaqaale ka qaataan dadka Oromada ah ee tirada badan ee ka soo qaxay magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda iyo weliba dadka deegaanka oo shaqo u baahan.